kormeerkan ay maanta sameynayeen maamulka gobolka Banaadir oo horkacayay gudoomiye ku-xigeenka maamulka gobolka Banaadir ee dhanka siyaasadda iyo arrimaha bulshada mudane Cali Axmed Guure oo qayb ka ahaa dadaalada soconaya ee maamulka guud ahaan gobolka iyo kan dawladuba ay ku doonayaan sidii loo adkeyn lahaa nabadgelyada guud ahaan gobolkan iyo gaar ahaan degmooyinka ay dhawaan sida buuxda ula wareegeen ciidamada qalabka sida ee dawladda ayaa waxa uu ka bilowday degmada Wardhigley iyadoo looga sii gudbayna degmooyinka Howlwadaag iyo Hodan oo dhamaantoodba kamid ahaa goobihii ay dagaalada ugu xumi ka dhacayeen muddada dheer oo ay dadkii deegaankaasi ahaana isaga carareen goor hore iyadoo hadda ay muuqato rajo wanaagsan oo dadku ay dib ugu soo noqonayaan guryahoodii inkastoo uu haddana jiro burbur xoog leh oo gaaray guryaha ay dadka rayidka ah leeyihiin iyo goobihii danta guud sida iskuuladii oo kale halkani waa xaruntii degmada Howlwadaag sida idin muuqataahina waxaa ku dhacay burbur waxaad arki kartaan iminka mas'uuliyiintii gobolka Banaadir ee kormeerkan qaybta ka ahaa oo uu ka mid yahay gudoomiye ku-xigeenka dhanka nabadgelyada gobolka Banaadir Warsame Maxamed Cali Warsame Joodax iyo qaar ka mid ah gudoomiyaasha degmooyinka gobolka Banaadir kuwaasoo isla goobta kula hadlay warbaahinta qaranka isla markaana sheegay ujeedada socdaalkooda hadii waxa weeye dibkay nabadeen nimankii mataqaana dalka burburiyay waxa ay u geysteen dalka wada ujeedaan ama degaankii ummadda ay lahayd ha ahaato ama midkii danta guud ah ha ahaato sidii wax looga qaban lahaa iyo sidii loo banayn lahaa iyo sidii jidadka loo furi lahaa iyo sidii qashanka loo duugi lahaa iyo waxa ay meydadka ay meelaha isaga rideen iyo wax baaba ay dalka u geysteen sidii wax looga qaban lahaa iyo uga qaban lahayn wixii karaankeena hadana gobolka Banaadir ayaan kormeerkeedii shaqadeed ku jirnaa insha Allah waxaan rajeyn doonaa inaan ka guuleyso doono insha Allah beledka bilicdii oo lahaa jiray iyo dadkii soo ku soo noqda iyo dadkii Soomaaliyeed laga barakacay ee lagu soo celiyo oo noloshu caadi ku soo noqotaan Ilaahay idinka rajeynayna waxaan ku faraxsanahay inaan 22 sano kadib aan taaganahay degmadii iyo xaafadii aan ku soo koray waxna ku soo bartay dhinaca kalena waxaan ka naxsanahay si u taabo iyo burburka iyo ka muuqda dhinacaasna waxa weeyaan waa wax laga murugoodo dhinacna waa ku faraxsanahay Ilaahay subhanahu wa ta'ala asaa amaan ku mudan inuu nooga xoreeyay cadawgii nooga xoreeyay bacda Allahina waxa amaan ku mudan ciidankii iyo shacabkii isku kaashaday iyo dawladii ma arkaysa iyo gobolka oo inay xoreeyaan cadawga xoreeyaan dhinaca amniga Ilaahay subhanahu wa ta'ala wax kasta waa ka hormariyay wuxuu ka horeeyaa nolosha oo dhan buu ka horeeyaa hadii amni la waayo waxa weeyaan noloshu ma suurto galayso Ilaahay subhanahu wa ta'ala ayadu wuxuu ku yiri fi suuratul baqara وإذ قال إبراهيم ربي اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات marka hore waxa leefta waxa ka horeeya iyo cuntada iyo waxbarashada in la helo amni in la helo kormeerkan oo sii socday ilaa ay mas'uuliyiintu gaaraan goobaha hore ee fariisimada hadda u ah ciidamada xoogga dalka iyo kuwa caawinaya ee AMISOM ayay mas'uuliyiintu ku soo mareen meelo kale oo kala duwan oo ay ku jiraan fariisimada Tarabuunka kuliyadii hore ee Jaalasiyaad warshada caanaha iyo agagaarka Albaraka oo dhamaantoodba ka tirsan degmada Hodan mas'uuliyiintan ka mid ka maamulka gobolka Banaadir ayaa dhanka kale waxay ina socod ku soo mareen qayb ka kormeerkooda xariyaha ay sida ku meel gaarka ah u degeen dadka barakacayaasha ah iyo goobo lagu qaybiyo raashin karsan oo dadka barakacayaasha ah iyo kuwa kale danyarta ah lagu quudiyo iyadoo ugu dambeyntiina kormeerkan ay sameynayeen maanta mas'uuliyiinta maamulka gobolka oo ku soo gabagaboobay wadada Maka al-Mukarrama oo qayb ka mid ah ka soconayo hawlo lagu dayactirayo meelaha uu burburku ka soo gaaray wadadaasi kasoo maamulka gobolka Banaadir kormeerka ay ku sameynayeen maanta degmooyinka magaalada Muqdisho oo ay markaasi dib u eegayeen qaabka ugu habboon dadka lagu soo celin karo ayay haddana waxay kormeer ku tageen kaamamka ay degan yihiin dadka barakacayaasha ah kuwaas oo ay xog ka ogaanayeen xaaladda nololeed dadka ku dhaqan Cabdi Nuur Muudey telefishinka qaranka Soomaaliyeed Muqdisho.